hadday eegayeen maalintaan ugu jilicsannahay inay maxaan ku raday in waxyeeleeyaan sugayeen waxaan leeyahay taasi wax allaalay wax idinku yeeli karto ama dhulbahanta sheego ama samaroon sheego ama gabooyo sheego annaga reer Sheekh Isxaaq baan leeyahay haddaanu rogmanayno haddaanu dhimanayno haddaanu maxaan ku raday waxaan la yeelayo Soomaali hore inoogu wada heshiis ani madaxweyne maanta laga bilaabo boqorkii saaq baan ka dhigan annaga madaxtooyada dhexdeedaan ku caano shubayna madaxtooyada ayaanu kaga dhaxaana shubayna boqor baanu ka dhigaynaa ninkan ogolayno ninka diidanow cirka halka kugu beegan soo daa cirka halka intaad gacanta ku hayso nagu soo daahnay annaga waxaan koori waxaan aanay cidiba idin aanay ogeyn idinku sheekaynay annaga idin yiri Soomaaliland baa la idin dhaxdaa qabyaaladu waa laga tagay dimuqraadiyad baynu samaysanay waxaasi waxaba kama jiraan nin waliba reer buu noqday nin waliba qoyskoodii buu noqday nin waliba tiisu wataa gunnimadiina laga shaqeynaya waxaan tan u soo joognay iyadoo Hargeysa waxaan ku afarta koonaba lagaga beeray qoxoonti wax walba isku keen dhaafinayna oo madaxaydin salaaxayni haddaad intaanu idin maqnaydaan noqon maqnaydeen ummadda Soomaaliland nala degtay haddaanu intaanu idin maqnayn aan noqon maqnaydeen haddaanu intaanu idin xurmeynaynay nagumeynayeen mid dib u dhamaysa taas oo shaqeyn mayso dhalinyarada reer Sheekh Isxaaqna waxaan leeyahay annaga idin dhabar jabinay annaga idin kala qaybqaybeen ay dagaaladii sokeeyay waxa si bilaameen buu yiri ayuu arkay qaar meel ku qaylayo garaabo yar ku cunayo oo calacalaya markaasuu wareer maxaa la calacalaysan isaaq haduu ilaahay rogayo maanta dulcad wadnaab rogi laabuuri waxaan leeyahay isaaq hadaanu haday Soomaaliya aadna rogaysaan maalintii aad waxad haysan banu adeegsateen maalintii ki Soomaaliland deganaya ki koonfur deganaaba noo heshiyay ayaadna rogi leeyahay in badan baanu hoo walaal cun lahay in badan baanu anagu dhexdeeda anagu haysan isku leeynay inaan cid kale la hadin dagaalka dhexdeeda reer Sheekh Isxaaq ka socda waxa sababay umada kale ilaalintooda waxa ceebto taqaan dad bay amalkooda tahay waxaanu ceeb u aqaano oo ka xishoonaynay oo aanu maxaan ku leeyahay arkaynay waxa fool xun ayaa dadka qaar sharaf u ah wanaag u ah ay ku faanaan soddonkaas sanadood ee Soomaaliland jirtay waxaanu ilaalinaynay waxa la yiraahdo wada noolaashiyaha iyo walaaltinimada waxaanu ilaalinaynay inay dadka ku nool ilaahay dhigay xuduudda Soomaaliland sidaan wanaagooda uga shaqeyn lahayn oo midnimadooda uga shaqeyn lahayn ee aan wada jirkooda uga shaqeyn lahayn ayaan soddonkaas sanadood ku hawlanayn laakiin waxaanu ogaanay dadkan walaalnimadooda ilaalinaynay ee aanu waxaan ku mar walba ka dhowreynay inaanu aflagaado iyo xumaan iyo waxay maxaan ku rahday dhibsadaan inay naga arkaan iyaguna waxay ka shaqeynayaan soddonkaas sanadood lugooyadayada dhabar jabkayaga waxay nala sugayeen jaanis ay mar uun helaan inay waxaan ku wax nagu yeelaan waxa makhraati u ah dagaalkii ka dhacay Laascaanood dhulbahante kii ciidanka qaranka ku jiray iyo kii waxaan ku iskuulada dhiganayay iyo kii waxaan ku qurba joogay iyo kii mii ariga ku raacayay noomay kala hadhin kii ciidankayaga waxa qabqabtay oo inamadayadii reer Sheekh Isxaaq qabqabtay kii ciidanka qaranka ku jiray ee aanu moodaynay inuu Soomaaliland nala ilaashanayo waxa soo dhaweynayay oo aanu arkaynay kuwii mushaharka ka qaadanayay ciidanka
ayaa soo dhaweynaya garaadadii oo tiknikadii intay ku soo dhaweeyeen tiknikadii iyo hubkii ay Somaliland kaga qaadanayeen mushaharka ayay nagula dagaalameen waxa taa ka daran Boorama Samaroon oo dalkan madaxweyne ka soo noqotay oo inta ay jirtay madaxweyne ku xigeen ka ahaa oo waxaan ku dib oo reerka saxa kaga dheef badnaa ayaa maalin walba inamadoodii raay kii baarlamaanka xukumayay golaha baarlamaanka u sareeyay maxaan fulinta ku jiray iyo kii xildhibaanka ka ahaa maalin walba ay iyo aflagaado iyo qabiyaalad iyo naxal meediyaha la fadhiya Soomaalidu waxay taada gabay baawame wuxuu oranay geedku koraayaba ninkan bari gantaalayay anigana laantay goyniyaan gacalkay mooday gabadhu jeclaadiye ninkan gaarida u mehershay anigana taydii guursadaan gacalkay mooday war dadkan walaalahay inuu maxaan sokeeya lahayn haddii ay jaanis nila sugayeen hadday eegayeen maalintaan ugu jilicsannahay inay maxaan ku raday in waxyeeleeyaan sugayeen waxaan leeyahay taasi wax allaalay wax idinku yeeli karto ama dhulbahanta sheego ama Samaroon sheego ama Gabooyo sheego annaga reer shaqo saxaaq baan leeyahay haddaanu rogmanayno haddaanu dhimanayno haddaanu maxaan ku raday waxaan la yeelayo Soomaali horey noogu wada heshiis horey noogu tashatay horey iyada oo halkaas maxaan ku raday dawladii ugu xoog badneed ay Soomaali leedahay ayay Hargeysa Burciyo Berberiya meel walba ku beertay qaxoontiye dadka ay nagu dhalan bedeli lahayd horey noogu adeegsatay madaafiic iyo diyaarado horey noogu adeegsatay waxay awood iyo quwad lahayd nin reer Hargeysa oo wax u yara dhiman yihiin baa barigi dalka la soo galay ay dagaaladii sokeeyay waxa bilaameen buu yiri ayuu arkay qaar meel ku qaylayo garaabo yar ku cunayo oo calacalaya markaasuu waraad maxaa la calacalaysaan isaaq haduu ilaahay rogayo maanta dulcad wadnaab rogi laa buuri waxaan leeyahay isaaq hadday Soomaaliya aadna rogaysaan maalintii aad waxaad haysan beenoo adeegsateen maalintii kii Somaliland deganaayo kii koonfur deganaaba noo heshiyay ayaadna rogi leeyeen maanta cidna waxba nama yeeli karto in badan baan ku xishoonay inaan dadka kula hadallo afadag in badan baanu sacabada nin walba wax ku siinayni in badan baanu hoo walaal cun lahay in badan baanu anagu dhexdeeda anagu haysanay isku leeynayni inaan cid kale la hadin dagaalka dhexdeeda reeshka sax ka socda waxa sababay umada kale ilaalintooda laakiin hadii la ilaalin waayay hadii intaanu idin ilaalinay anaga dabka madana noogu jiray waxaan leenahay maanta waanu idin fahamnay 20 keenana yaryar cuqudadaysan ee naxaligu ka buuxay baarlamaanka dhex fadhiya iyo 20 keenana yaryar waxaan ku ixtisaamka ah ee al-shabaab ka soo jeeda wala go'aan ay soo saaraan wala waxaan ku waxay ku dhawaaqaan ayaan waxba naga qusayn wax allaale iyo wax naga quseeya haddaanu nahay reer shaqo saaq ma jirto Muuse Biixi Cabdina haddii loo yaqaan madaxweyne Somaliland maanta waxaan ugu caanashweynaa boqorka reer shaqo saaq waxaan inuu sheegaynaa inamada yar ee aflagaadoonaya ee qowlalada ka xumbeynaya ee sidii curimad madaxa ka naaxay ee cashuurihii dumarka iyo haweenka iyaga banaanka waran ee maxaan ku haday muuska iyo tamaandhada dariiqa ku iibinaya siigada iyo